madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo qaybo kamid ah golihiisa wasiirada xildhibaano ka tirsan maamulka xildhibaano kamid ah dawladda federaalka iyo isimada Khaatumo kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay uga hadleen xoojinta midnimada Soomaaliya iyo Khaatumo dhexdeeda waxaa shirka kelmadda ugu horeysa ka jeediyay Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe oo uu sheegay bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in shirkan ay ka sugaan go'aano miro dhal u ah masiirkooda shir barakaysan Allah ka dhigo dadka kale ee maaragtay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn degana waxaanu leenahay shirka waxaad ka rajaynaysaan khayr waxaad ka rajaynaysaan dantiina iyo maslaxadiina in lagaga hadlayo wixii ka soo horjeeda goboladaas ee xumeynayaan waxaad ka rajaynaysaan khaladka iyo xumaanta aad wadaan in lagaga hormarayo sidoo kale waxa isna madasha ka hadlay Isin Cabdullaahi Axmed Cali dhog haddaynu isugu nidhi maanta garab aad u xoog badan baa jooga koox kastaaba waxaan isleedahay dantii adaa wada mar haddii koox walba isleedahay dantii adaa wada waa inaynu wada meel sugaynaa kala duwanaanta ra'yi hore aynaan maanta u socono inaynu midayno waa inaynu hirgelinaataa Cali Ciise Cabdi oo kamid ah aqoon-yahanada Khaatumo ayaa isna hadlay waxa uu sheegay in bulshada Khaatumo aysan cidna uga martii doonin xaq bil-aadinimo ay leeyihiin waxa uu dhinaca kale carabka ku dhuftay in Khaatumo ay xaq u leedahay in ay saamigeeda ka hesho nidaamka ay Soomaaliya burburkii kadib ku heshiisay ee federalismka laba qodob oo kooban u baan isku taagay waxa weeye bani aadamku ilaahay abuuray wuxuu leeyahay xuquuq rabbaaniya xuquuqda rabbaaniga waxaa ka mid ah inuu jirto waxa isaga iyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo ehelkiisaba ay ku noolaan karaan oo ku baahi baxaya kelmadaha waxaa lagu yidhaahdaa afafka qalaad the pursuit of liberty and happiness inuu qofku madax banaanidiisana raadsado wax allaale iyo wixii suuragelinayaa nolol fiican inuu ku noolaadana inuu raadsado kuwa rabbaaniga aad xaqa u leedihiin reer Khaatumo meelaad joogtaanba iyo kuwa Soomaalidu ku heshiiseen raadsanayno inaynu ka mid noqonaay wiilka Baraawo jooga ka Baydhabo jooga ka Boosaaso jooga wiilka ama gabadha Buuhoodle joogta ama Bari Guntii joogta deegaamada Sool iyo Sanaag iyo Cayn way mudan yihiin inay yana helaan xuquuqda noocaas waxaan oran lahaa cid kaloo aad marti uga tihiin ama idin siinaysaana ma jirto Axmed Cali Jaamac Jangeli oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa isna ku nuuxnuuxsaday sida ay waajib Khaatumo ugu tahay inay iyagu midoobaan kadibna midnimadii qaranka raadiyaan midnimo ayaa wax walba ku dhashay Soomaali dhibaatada ugu weyn hadda haysata waa midnimo la'aan midnimo la'aantuna waxay keentaa tafaraaruq midnimo la'aantu waxay keentaa dib u dhac xooggii iyo taladii oo kala tagta sidaa darteed waxaan ku baraarujinaynaa runtii shacabkeena in ay midnimada xoojiyaan midnimada beelweyntooda iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa isna goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Khaatumo Cabdalla Cagalule oo sheegay inaysan cidna ka qaadan doonin in ay xaqooda duudsiiso hal yeelmeen sida aniga aragtideedu ay tahay waxaynu mudannahay waxaan ahayn inaynu qaadano waxaan yeeli karna maaha kuna tirsan karno mana yeeli karno mana qaadan karno aragtideeda idina way la qabtaan bay la tahay war sharaftidu maaha wax la burburin karo oo ay baayici karto sida aniga la tahay aadanahana inuu noolaado sharaf inuu ku noolaado waa qiimo badan shirkan waxa uu xoojin u yahay shirkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku saareen war murtiyeed oqaasha iyo waliba madaxda Khaatumo oo kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka Cagalule iyo waliba xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka taas oo ay ganafka ku dhufteen ama uga soo horjeesteen heshiiskii 5 qodob ka koobnaa ee uu madaxweynaha Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galeed la galay maamulka Somaliland Maxamed Kaafi Goobjoog